ورحمة الله وبركاته. مدحda dawladda golayaasha saraakiisha dawladda iyo inta kale oo iyaguna shirkan hadda maanta fadhida wayna salaamay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan marka hore inay ka mahad celinayaa madaxda dawladda iyo dadweynihii airportka nagu soo dhaweeyay intaba sida diirada aad noo soo dhaweyseen aad bayna ka mahad celinaynaa. waxaan kaloo mahad celinaynaa ilaahay oo nabad isugu soo keen celiyay muddo hadaynu kala maqnayn sidaad ka warhaysaan. halkan waxaan ka aadnay markii shirkii Garowe dhamaaday 18 bishii tagtay inaan ka qayb galno shirkii loogu magac daray London Conference on Somalia. shirka London oo Soomaaliya loo qabtay shirkaas wuxuu ahaa shir muhiim ah sidaad idaacadaha kala socoteen iyo anaga la ka qayb galkayagii shir weyn buu ahaa ugu yaraan 45 dawladood madaxdood ama madaxweynayaal ama ra'iisul wasaarayaal dawladna wasiir khaarijiyaal ayaa ka soo qayb galay iyo hay'ado kale oo caalami ah oo ay kamid yihiin xogayihii guud ee qaramada midoobay iyo hay'ado kale oo caalami ah inta waa ka soo qayb galeen. shirkaas waxaa ka muuqatay sida ka warhaysaan in Soomaaliya in sida ay tahay adduunyadu u soo jeensato oo wax la qabto ayaa focuska la saaray. communique ka soo baxayna waad aragteen nagu waa geynay contribution ka yagi wixii aanu qaban karo aad loo taageeray processka socda oo nabadgeliyo oo Soomaaliya dawlad rasmi ah bisha 20 August loogu dhalin doono hadii Ilaahay idmo. inta ka horeysana la buuxinayo wixii loogu magac daray heshiiskii xamar September lagu gaaray 6deedii oo loogu magac daray road map oo dawladda Puntland ka qayb gashay iyo shirarkii ka dameeyay oo Garowe lagu qabtay Garowe 1 iyo Garowe 2 oo mabaadi'dii Garowe oo wixii tafaasiilaha si taabto ugu galay waxa aad iyo aad loo soo dhaweeyay sida najaxa oo Soomaaliya gudaheeda loogu qabtay shirar iyadoo aan cid dibadeed ayaan marti gelin iyadoo aan ciidan shisheeye ammaankeeda sugin iyadoo dawladda Puntland ay xilkaas qaaday kuna guuleysatay aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay loogana mahad celiyay hawshaas aan qabanay. mahadaas Ilaahay baa iska leh koowaad mahadda labaadna waxa iska leh dadka reer Puntland dhammaantiis gaar ahaan ciidamada amniga oo hawshaas qabtay lagu ammaanay Soomaaliya oo dhan ay jeclaatay sida ay u sugeen amniga. intaas kadib wali ma joogto waxa dhiman hawlo adag kuwa Soomaaliyeed oo guud ahaan waa dhiman yihiin dhamaystirkeedii oo xil weyn qaadnay oo aan dhamaystirayno. waad ogtihiin road map wuxuu qorayay 4 qaybood. qayb waxay ahayd qaybta ammaanka oo inaga iyo qolooyinka kale oo stakeholderska aan ka wada qayb galno meel kasta hal lagu dhige. qaybina waxa weeye waxaan la yiraahdo dib u heshiisiinta in la fogeeyo oo outreach meelaha fogfog in la gaaro ayay ahayd. qaybina waxay governance-ga oo dawlad wanaaga. saddexaas qaybood midda amniga waxaan ku leeyahay labada kale dawladda federaalka baa looga jeeday in dhamaystirto. qaybta ugu muhiimsan oo ah dastuurkii horumarintiisii iyo shirweynihii ansixin lahaa iyo barlamaankii la dhimay qabashadiisii iyo hawshiisii in la dhamaystiro waxay ahayd qaybtii loo doortay in lagu qabto dawladda Puntland gudaheeda. inaga xilkaas hawlna intii hore qabanay inta dambana inaga leena ka sugaya hadii alla idmo leeno ka jeeda marka hawl adag baa inoo taal. hawshaas guud oo Soomaali aynu hayno kuna ammaananahay dadka Soomaaliyeedna ay abaal noogu hayaan annaguna ay tahay waajib aan gudanay ka sokow waxa leena ka rabaateen inaga gaar ka ahayd sida ka warhaysaan waxayna ku soo aadan shirweynihii lagu ansixin lahaa dastuurka Puntland. dastuurka Puntland wuxuu qorayaa in lagu ansixiyo afti loogu qaado habba kii la doorbido in afti guud oo dadkoo dhan qof ay codkooda ku ritaan iyo in afti kooban oo dadka ka kooban shirah la qabto oo lagu qabto sida dastuurka qoran. dabadeedna sharci ahaan lagu ansixiyay golayaasha dawladda dhan ku ansixiyeen sharcigeedina ay gacanta ku hayaan guddiga doorashada oo Puntland. shirkaas wuxuu dhici doonaa insha Allah dhawaan hadda maalintii ma sheegi karo laakiin bishaan dhamaadkeeda iyo bisha soo socota horaanteedu dhici doona. waxaana laga maarmaana dawladda Puntland inay yeelato dastuur rasmi ah oo ay ku dhaqanto intaan la dhaqan gelin dastuurka dawladda dhexe oo federaalka intaan la dhaqan gelin. hay'adaha heshiiska Garowe waxa ku qoran dastuurka federaalka waa inuu waafaqaa dastuurka Puntland waa inuu waafaqaa sidaas ku qoran. ilaa inagu waxaynu nahay horgalihii dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah oo israacday inaga bilownay
shirkii waxaa lagu ansixiyey Nairobi oo ka dhacay 2002 ilaa 2004 shirweynihii dheeraa charterka dawladda federaalka ku shaqeyso weeye hawshaas marka inay anagu teena horta dhamaystirno oo dawladdii ugu horeyso Puntland oo dastuur leh oo sharci leh oo dawladdii dhexe dastuurkeedii oo markaas soo raaco ayaa leena ka raabaa hawl adag weeye leena ka rabo mas'uuliyadeeda way jirtaa Puntland Soomaalidu waxay ku mahmahdaa facaa fiicnaantana kuma ogola falxumadana waa kugu caaya way jirtaa in hadba la rabo meel qaar kood waxyaalo badan hadba in lug la baxo Puntland wanaageeda iyo horumarkeeda inagu sideen ognahay nabadgelyada waynu sugnay dhibaato iska jirto oo Soomaali aan la qabno oo dad la dilo way iska jirtaa laakiin nabadda Puntland waa mid shirarka inoo suura gelisay aan ku qabanay inaan si adkeena leena ka rabaa waxa leena ka rabaa horumarinta dhaqaalaheena hadda saad ogtiin leena ku kooyayo adduunka oo dhan inuu ku soo jeedo aad u jeedaan in laga qodaayo muxuu ahay petrolki Puntland laga qodaayo Soomaaliya oo dhan ay tahay rajo weyn oo ay qabto oo faqriga maanta jira meelihii ugu horeeyo laga bixilaa ay tahay oo loo kala ordaayo inay meeshaas meel wanaagsan noqoto wax ka soo baxaan insha Allah waan la sii ballaarin doonaa taasna rajo weyn ba hadda sida ishaarooyinka sheegayaan laga qabaa in wax ka soo baxaan waxa kale oo jira magaca Puntland ay ku leedahay ummadda Soomaaliya dhexdeeda iyo caalamka intaba intaas oo dhan uquuri waa jira maamaraadyo waa jiraan caqabado iyo qodxan wadada in la dhigayo oo hadba ay cid isku dayayso inay meel lug la baxdo hadda waxba afka ku sii dheeraan mayo ayaamana horena wayna soo marmareen meelaha agagaarkeena waxyaala ka dhacay haddana way iska jiri karaan qorshahaasu waxa ugu muhiimsan oo leena ka rabaa dhamaystirka dawladnimadeena iyo adkaynta nabadgelyadeena iyo horumarkeena iyo hormuudnimadeena arrimaha Soomaaliya oo inaga muqaddas inoo ah in Soomaaliya isu timaado israacdo intaas muhiimada إن شاء الله تعالى وقول في عن إنك كما هين عدو وعن دولنا إن صومالي ومده وإسراع ذي والنظام أي وحنا كلا ليه ذهي وحنا أي وذاكته أي مضاها الدون كه أي وقم نقطة شرف يدي تذكير الصون نضان إنت أصلا كل ما والسلام عليكم ورحمة الله